isu soo noqod wanaagsan waa anigii waa Samir Qadar odayaal iyo islaamaad baydii salaamiya dhamaatiiba soo fadhiista intaanan bilaabin anigu ma ihi wariye ma ihi anigu joojiyo waxaan adeedihiin warka naga soo habeeshay iyada kulwa wariye TV daawan Universal Home Cable TV ku filan ba Soomaaliya dadtiin adeedihiin joojiyo waxaan adeedihiin iska shaqeyn war anu saasan ku wadaya wax aan joojiniyo malaha mid aan bedeliyo malaha aan idin bilaabo waxaan maantaydi hayo Soomaaliya iyo Zimbabwe inuu ku bilaabiyo waliba xulka Soomaaliya ciyaartii hore weyn la soconay way wada daawanay Zimbabwe hal iyo eber bay ka soo badisay iyagu Djibouti ku ciyaariyay Djibouti waa gurigeedii la tagtay Zimbabwe waa gurigeedii la tagtay Soomaaliya iyadoo waliba geeri u taalo oo madaxweynahoodii hore dhintay saddex yaal bay ku soo dhufatay Zimbabwe goolka hore daqiiqadii 7 bay dhalisay goolka ay dhaliyeen double bay ka dhaliyeen la ilaaha illa allah gool macaan baa goolkaas yaan is xaqirin Soomaaliya ka jawaabtay wax yar kadib Khalid ay Zimbabwe isku gashay wiil baa la cararay kaligii ciidamada tabti miisiba ka dulqaaday gool walaha waa dhaliyay ducadiina waa la aqbalaysan markaa wax yar kadib passion waxaad moodisay waa la soo jawaabi waliba jawaabo kulkulu balasiinay free kick bay ka dhaliyeen goolasha laga dhigay Soomaaliya ana maanta xay waa ka dhaliyaan hadana Soomaaliya saasa looga badiyay midna ay xasuusiyo madaxweynaha Soomaaliya dalkiisa intaanu ka bixin intaanu Zimbabwe aadin uu si duceeyay anagu wanu ducaynay ducadeedii wax la aqbalay malaha tiisna lama aqbalin taaydan laga aqbalin ka gudub maxaa kale waxa kale dalalka Somaliland iyo Egypt Masar kulba saad taqaano iyaguna ciyaar ay ku dhaxmartay Somaliland gudaheeda ayay hal iyo eber ku soog Somaliland laba qoosay waxa yar noo soo diray waxaasi waa cilad farsamo aynu ka gudubno wararka sportiga ayaynu ku dhex jirnaa wararka kale dadku waxay igu maleynayeen wariyahay soo sagaashka warma ka sheekay kan waa kii u dambeeyay runtii idin sheegay Maxamed Farax wiilka Soomaaliga ayaa waa Soomaali wuxuu markii lixaad oo isku xigtay ku guuleystay marathon lagu qabto dalka Ingiriiska jeer oo isku xigtay ku guuleystay gaaladii way yaaban yihiin yalko daba ay iska parking gareeyna wararka imika waxaan idin soo deynayaa ama idin soo gudbinayaa hees ajiiba oo ay qaada fanaanad ajiibi daawasho wanaagsan dee mana ya witke ado kale unkan kumarge aslu badano amma badano sidi wahi udugum badano wahanabiyo kum bihila ado biyo arosi lagalo ano oridada noqdo wadala ilwad quruxo ado aslu badano amma badano sidi wahi udugum badano wahanabiyo kum bihila ado abiyo arosi lagalo ano oridada noqdo wadala ilwad quruxo